waxaan ka aqrinayaa warmutiyeedka anoo ay wakiisheen odayaasha beesha oo halkan safan shirweynaha beesha habargidir ee Hobyo taariikhdu 15 bishii 8aad 2019 ujeedo warmutiyeed shirka Hobyo hordhac ayadoo laga anba qaadayo shirweynaha beesha habargidir muddooyinka ugu dambeeyay uga socday magaalada Hobyo shirkaas oo laga gaaray guulo badan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 8aad 2019 waxaa halkan hortiina lagu saxiixay mabaadi'dii guud ee beesha ay wada gaartay sidaas darteed waxaa halkan ka soo jeedinaynaa warmurtiyeed aan la wadaagayno dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka shirweynuhu wuxuu u baaqayaa guddiga qabanqaabada ee shirka dib u heshiisiinta galmudug iyo inta ay qusayso qodobada soo socda shirweynaha Hobyo inuu ku soo dhamaado muddo kooban si ergada qaybgalka shirka Hobyo uga mid noqdaan shirka dib u heshiisiinta galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug inay tixgeliyaan gaar ahaan siiyaan dhamaadka shirka Hobyo beelaha walaalaha ee dib u heshiisiintu galmudug nagala dhaxayso inay gacan ugu siiyaan guusha Hobyo si ujeedooyinkii galmudug ee naga wada dhaxeeyay ay guul wada dhamaadaan waxaa lagu wargelinayaa dhammaan daneeyaasha ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta galmudug ee ka soo jeeda beesha habargidir inay ixtiraamaan danta guud iyo midnimada beesha dhammaad intaas afartaas qodob ayuu ka kooban yahay warmutiyeedku waana salaabantihiin